idaacadda BBC-da laanteeda afka Soomaaliga ayaa waxa ay baahisay war khalkhalgelinaya bulshada reer Somaliland kadib markii ay wareysatay nin ay ku tilmaamtay in uu yahay maayirka Gabiley waxaana wareysigaasi u dhacay sidan. waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efamada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa subax talaada 23 bisha Julaay sanada 2019 arrimahan barnaamijka saaka idinku haynana waxa kamid ah maamulka madaxweyne Trump oo soo bandhigaya hab ballaaran oo si degdeg ah loogu musaafirinayo muhaajiriinta sharci darrada Canada siyaasad kale oo midaas ka duwanayay qaadatay. Canada saddex group bay albaabada u furtay. Groupka koowaad waa qaxootiga, groupka labaad waa qoysaska la isku keenay, groupka saddexaad waa dadka maskaxdooda iyo khibradooda loo keenayo waddan. dowladda Soomaaliya waxay ka hadashay dib u dhac ku yimid waqtigii la qaban lahaa doorashada madaxtinimada ee Galmudug. dib u dhaca waxa keenay muddaha hadda waxa laga shaqeynayay dadka in la isku xiro laga bixiyo waxyaabo badan oo meesha ku jira hore loogu socon karo. khilaaf hareeyay maamulka Gabiley ee Somaliland iyo waliba ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo aanan loo maxkamadeyn doonin eedihii kufsiga ee uu wajahayay. waatahay khilaaf muddo soo taagnaa oo u dhaxeeyay maayirka Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaas ayaa sii xogeystay dhowr goor ay eedeymo isku mariyeen warbaahinta ugu dambeynna xildhibaanada maayirka ka soo jeedo waxa ay sheegeen inay qaban doonaan shir ay xilka kaga qaadayaan maayirka iyo mid cusubna ay ku dooranayaan. wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland ayaa soo saaray warqad uu ku amray in golayaasha deegaanka aanay yeelan karin fadhi aan caadi ahayn hase yeeshee xildhibaanada mooshinka wada ayaa waxay sheegeen in umurtaasi aanay waxba ka jirin oo ay qabsan doonaan kulankooda. waxaa kamid ah xildhibaankan oo u waramay Samiir Cabdullaahi. وأبصر نورته هو ما يرتبط كفرها بأنها ما يرتدي ما يقدمه قدامي كده عندما أنا مدوها إني بروح أكيد وعامدي بروح أيوة قالوا سروري وتعرف بروح يصير تكرر كنت عليه خان وتكفين ويابوا كذيو قبل ما مرة دوبار من أمر كده بعمل بروح أنا قالوا أيوة خلق نقول يدينا نفكر ما قد شبه وجع سكانه وأنا استفاد شرعي وأبغى أقول أنا هاي وأنا نقول دوتي وأنا حق ولا ما eedeymaha aad ku eedeynaysan maxaa kamid ah حق الميزانية قالها تصاصروا حتوا هاي كلام لقى مرة تصوب حي كلها دماء أيو كذيا وكلي ماذا أمر عن حين كي كلها تصوب حي maadaama uu maayirka magaalada uu yahay oo aad idinka u doorateen muusan xor u ahayn go'aanadiisa go'aanadiisa wuxuu xaq u leeyahay golaha wixii ka soo baxay inuu fuliyo oo go'aamada golaha ka soo baxay golaha soo horay wuxuu doonay go'aamada wixii loo go'aamiyay uu fuliyo waxaa ku dalku dhigay oo dhigay haddii uu maayirku fikirkiisa kaliya ku waday hawsha ya doorasho iyo golayadeega laba qabteen eedeymaha aad u soo jeediseen ee ay kamid tahay inuu ku tikrifalay miisaaniyadda iyo hantidii qaranka maxaad cadeymo gacanta ku haysaan oo aad arrintaas ku cadeyn kartaan cadeymaha waqtigii goobteedii marka iyaga soo bardhigana waxay ka hor dhimayna waxaan haysano cadeymaa waxa ugu weyn marka uu amar uu jediyey oo mesela su'aalaha kugu soo qaatay inuu hanti dowladda hoose leedahay intuu keligii ciduu dowladda ka xarafsi ka iibiyo xeerbaha ma banayn meel jabitiska waa fikriyan igu dhaqmay in dhul dowladeed uu xaraashay ma cadeymo cad ayaad u haysaan waan u haynaa wixii dadka guud ee laga qaad dibin oo dhan dawlada jiidaha ku baxday waan u haynaa waxyaalaha kala cadeynaan waxay leedahay inaan kaaga sigo baxo uma baahnin oo ay loo difaac markayga saacadii hortalaabo golaha xaq wuxuu u leeyahay markuu u garan waayey inuu mar walba uu ka qaado ciduu doono keena xeer marka hore uu nasiibiyey shuruucda qaran wareegta iyo xeer waxaa ka sareysa xeerka qaranka ugu sareeya dalka Soomaaliya waxaa ugu sareysa diinta joogtaa ku xiga xeerarkii golaha ka sabcay madaxweynaha Soomaaliya baa ku xiga intaasna waxay noo siinaysaa awood aanan maamulo cidaan doonaan keena cidaan doonaan garan weynaan la xisaabtano maganinka markaasuu la xisaabtanka diido wixii ku jira la sheega waa tahay xildhibaanada golayaasha deegaanka ee degmooyin badan ayaa sidan oo kala sameeyay arrintan ma la oran karaa waa adduun raadis la oran kari maayo waxaan la oranay adduun raadis ma oran karo ay sababta wax ninka amarkiisa la qaadan waayo adduun kan maxaa
iskuma gaari amar qaadashada ka horeyse adduun la isweydiiyana xeer wax ka baxsan la weydiiyana waa mamnuuc uma jirtana ama maana kaba fikirtaa horaan ma uga gudbiseen digniino ku aadan in uu waxyaabaha aad idinka usoo jeedisaan uu qaato maadaama idinku aad soo doorateen waxaan u gudbinay tiro inaadan ma laha sababaha badan awgeed iyo intaasoo jirba iyadoo qoraala iyadoo fadhiyada sheekaan iskugu nimaadno de qofka waxay tahay soomaalkaan dawada noo gobol badiya inta aan gobol badinay inta baadinaga jiro intaasoo jeer baan kusoo eedayno waa tahay dhanka kale waxaa eedahaasi gaashaanka u daruuray maayirka gabiley maxamed amiin cumar cabdi oo isna u warramay samiir cabdilaahi wixii loo doortay wixii loo badayay wixii laga sugayay ummadda ka sugaysaba sidaan ahayn bay hayaan hantida qaranka lasigeeda iyo haddii la idmiyo baabaasigeeda iyo haddii la idmiyo boobkeeduba haddii la idmiyo iyaga ayay dhexdeeda taallaa magarad anigu haddii la idmiyo qasad golaha wakiilada ay leeyihiin mafaatiixdeeda maan hayn wareeyay baa ka dhexana maan hayn magarad markaa haddii la idmiyo niman hore loo haloobay ayuunba haddii la idmiyo aanusayna warkadaaya sidani maaha sidii haddii la idmiyo wixii laydiga sugayo wixii laydin doortay maahae leeyihiin maadaama anagu aan dooranay maayarka waa inuu dhageystaa hadalladeena oo maaragtay awaamiirta anaga naga soo baxda waa inuu qaataa bay leeyihiin marka waxay kugu inaad garab martay dhammaan amaradii ayaga xaggooda ka soo baxay waxaynu qaadanaa horta waa maxay amarada wixii saxaynu qaadanaa mise wixii khaldan baynu qaadanaa wixii saxa baynu qaadanaynaa wixii ay adeelaydiyo meesha ay doonayaan in adeelaydiyo loo meel mariyay iyo in laga dhageysta iyo in lagu maamuuso waxa weeye wixii ummaddu ay ku maamuustay iyo waxay ummaddu adeelaydiyo ay u horseedeen ayaa waxa weeye imaan bari iyo imaan bilaala ma garad wixii maanta tallaabada loo gudbo maanta ummadda in waxay soo jeediyeen in aad ku eedaysan tahay ama sababaha ay xilka kaaga qaadayaan ay ka mid tahay in aad dhul dawladeed xaraashaysay waxa weeye aan kaaga warramayaa xil ay iga qaadayaan filaada iyo darajada labaduba xagga alle ka yimaado say dhaqaniis haye haddii la idmiyo maalmaha la haraka baraka maalmaha ilaahay kugu talagalay inaad harakaad samayso iyo haddii alla idmiyo aad tallaabo aad digayso iyo halka aad ka qaadayso intaba qadar bay ku socotaa ma garatay waxa la yaalo waxaa eedaynta ah ee ay ka jeedaan soo jeediyeen baa waxba kama jiraana oo aan saliya raad lahayn ma garatay dalka cilada jiiftaana waxa weeye war ka daaya waxa xadmeen in laysuu sheego iyo in laysu qabtaaso muhiim aha waxa weeye gacan shisheeyaa ku jirta wixii haddii la idmiyo taladooda iyo haddii la idmiyo arrinkooda haddii la idmiyo dodobkooda iyo waxaad ciddii u adeegayeen cid ka baxsan ayay u adeegayaan ma garat kaasi wuxuu ahaa maayirka magaalada gabiley ee maxamed amiin cumar cabdi oo u warramaya waryahayaga samiire cabdilaahi waraysiga ay BBC-du baahisay ayaa kor usii qaadaya khilaafkii ka taagnaa golaha deegaanka gabiley cabdiqaadir habane Africa Telegram